NASA waxay daaha ka qaaday kororka heerka badda ee ka sarreeya inta la filayo sannadka 2024. Iyadoo kulaylka caalamku uu sii wado inuu dhalaalayo barafka dhulka, kor u kaca heerka baddu wuxuu gaadhay heerar cusub. Si kastaba ha ahaatee, sannadka 2024 qaab ka duwan ayaa sababay kororka mugga biyaha. Kor u kaca aan aragnay 2024 wuxuu ahaa mid ka sarreeya sidii aan filaynay, ayuu yiri NASA oo ku takhasusay badaha Josh Willis. Sannad kasta wax yar ayuu ka duwan yahay, laakiin waxa cad ayaa ah in baddu ay sii socoto kor u kaca, iyo heerka kor u kaca ayaa sii kordhaya oo degdeg ah. Marka la eego isbeddeladii hore, NASA waxay saadaalisay kororka eber 4.3 eber 1.7 ee 2024, laakiin taasi waxay gaartay eber 5.9 eber 2.3. Tirooyinkani waxay ka soo jeedaan cabbiro ay qaadeen 5 dayax-gacmeed oo caalami ah tan iyo 1992. Kii ugu dambeeyey, Sentinel-6 Michael Freilich, wuxuu awood u leeyahay inuu cabbiro dhererka oogada badda ilaa dhowr sentimitir 9 eber boqolkiiba badaha dhulka. Cilmi-baadhayaashu waxay muddo dheer ka shakiyeen wareegyada jawaab celinta ee aan la ogayn inay soo dedejinayso kor u kaca heerka badda ee saadaasha, waxaana laga yaabaa inaan hadda markhaati ka nahay natiijooyinka. Ilaa hadda, barafka dhalaalaysa ee dhulku waxay xisaabiyeen ilaa 3 meelood 2 meel heerka badda sannad kasta, laakiin tani si lama filaan ah ayay u beddeshay sannadkii hore. Sannadkii 2024, 3 meelood 2 meel sare u kaca heerka badda waxaa sababay balaadhinta kulaylka ee biyaha badda ee dareeraha ah. NASA waxay heshay, in kasta oo lumitaanka barafka glacial uu sidoo kale weli sii dardargelinayo. Biyaha diiran way ka cufan yar yihiin, sidaas awgeed waxay qaataan qol ka badan biyaha qabow, iyo kadib kulaylka jawiga ee rikoodhka dhulka, badeena ayaa ahaa kuwii ugu kulaylka badnaa ee ay joogeen 30 sano oo rikoor ah. Intaa waxaa dheer, badaha inta badan waxay isku habeeyaan heerkul kala duwan leh, oo leh biyaha ugu diiran, ugu cufan ee sare. Laakiin kororka tamarta kulaylka ee jawigeena ayaa sii hurinaysa duufaano badan iyo dabaylo degdeg ah si ay si fiican isugu daraan lakabyadan, una diraysa kulayl badan lakabyada hoose si degdeg ah, sii kordhaysa heerkulka badda iyo natiijada heerka badda. Isbeddeladan qaababka dabayshu waxay keenayaan in meelaha qaar ee badda ay kulayliyaan 2 ilaa 3 jeer in ka badan celceliska caalamiga ah. Kulaylka ka dhashay kulaylka badda ayaa dilaya balaayiin xayawaan badeed, wuxuuna baabiinayaa kalluumaysiga ku tiirsan. Khariidad muujinaysa halka ay ku dhufteen kulaylka badda oo taxaya saamaynta. Kulaylka badda ee caalamiga ah inta u dhaxaysa Juun 2023 iyo May 2024 iyo saameyntooda. Sidoo kale waxay sababeen daadad korortay. Marka ay baddu kor u kacdo, waxay qariyaan webiyada waaweyn sida Gangeska oo ay ka helaan biyo cusbo leh. Inta u dhaxaysa soo gelitaankan iyo hoos u dhaca xilliyeedka dhalaalka glacial, sahayda bini'aadamka ee biyaha macaan ayaa si degdeg ah u yaraanaysa. Faragelin la'aan, tani waxay ugu dambayntii ku qasbi kartaa dhammaan dadweynaha inay u haajiraan si ay u raadiyaan kheyraadkan muhiimka ah. Caalamka dhoolabo ku sii daaya shidaalka ama nooca warshadaha. Sii dayntani waxay sii hurinaysaa kulaylka xad-dhaafka ah ee keenaya kor u kaca heerka badda. Adduunkeena xogta bu'aabi. Sida kaliya ee lagu dhimi karo saamayntan waa in la dhimo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo. Qayb kasta oo ka mid ah shahaado aan yarayn karno kulaylka mustaqbalka waxay badbaadin doontaa nolosha.